markaynu ummad hogaaminteed ka waramayno iyo riixitaan loo riixo xagga khayrka qabta iyo wanaag lagu hago waxa habboon marka hore in waxoogaa aynu ka nidhaahno malaa kooban caqabaadka ummadda haysta ee u baahan in laga hago markaasi ama loo toosiyo cumuuman qofka muslimkii wuxuu rumaysan yahay kitaabka qur'aanka ah iyo sunnada nebigu calayhi salaatu wasalaam inay yihiin waxyigii alla soo dejiyey ee loogu talagalay in lagu hago oo lagu hanuuniyo bini aadamka dhammaantii innaga haddaba dhibtayna haysataa ma mushkilad ama ma dhibaato dadba qiyaada dhibaatadeed qura miya ma dhibaato shacabba ma dhibaato caalami aan gacanteenna ku jirinba waxaanaynu u baahanay inuu hagnaa muxuu yahay waxaad moodaa ummaddeennu inay isku dayday inay qof beddesho dabeetana way beddeshay waxbaa iska din waayey way ku noqonno waynu beddelle lixdanaadkii qaar baa la saaray dabeetana waa la dhigay waa laga quusto waa la beddelay kuwo kalaa la saaray waa la beddelay kuwo kalaa fuulay waa la beddelay ilaa hadda waa la beddelayaa kullamaa beddelka la beddelabana waxaabaad moodaa ilal aswa uunba inay usii socoto xagga hoose inay usii socoto mushkiladdayna haysataa markaa ma mushkila qiyaadiya faqad ba ma mushkilad jamaacaba waa dhibaatadeedna waa noocma caqabaadkayna hortaaga waa noocma waxaan leenahay caqabaadkayna hortaagani waa dhowr caqabo waxaan odhan karaa caqaba caalamiya wayna hortaagantay oo shalayta in badan lagu celcelinayay dunida inay ku nool yihiin shayaaiin maakiri oo aan khayrka jeclayn dad badan oo danaystayaala caalamkiioo maanta noqday kubad yar oo meel kastaba dhowr saacadood lagu gaadhayo akhbaartiisu ay isku gaadho wakhti daqiiqada ka yar bath mubaashar ama tv-ye iyo wax caalamka ay ka dhawaaqayaan oo dunida halka u dambaysa waxaa ka dhaca secondkiiba uu halka kala gaadhayo adigoo gurigaaga iyo dadkaagaad ka timi min waraa'i sitaar laga ta'hiirinayo oo waxaa laga yaabaa ummad dhan oo soomaaliyeed inay b b c hagto waxaa laga yaabaa ummadda dhan ummadda daaya waxaa laga yaabaa magaalo aadoo jooga magaalada gudaheeda waxa ka dhacaya inay iyagu ku hagaan oo uu kaaga warramo aad tidhaha b b c baa maanta dhegaysto waxaa la yidhi sekadaas sii jeeda qolaa isku dishay waa meeshaad joogtay hadda ayaa lagaa hagaya oo lagu tusinaya caqaba caalamiya baa jirta aada u weyn oo ay ugu talagaleen dadka markaasi saytaradaasi ay gacantooda ku jirtaa inay caalamkan sii dumiyaan aan iyaga ahayn caalamka aan iyaga ahayn madxana buu ku jiraa ama taayir wareegayuu saarayo aan loo naxaynin kaasi waa caqabo jirta caqabaadka caalamiga ina haysta waxaa ka mid ah waxaynu dhaxallay waa isticmaar maanta bilaabmiya waxa kan maahe waa isticmaar aynu quruun ku soo jirnay waxaynu dhaxallay dacfi tiro badan oo dadkii muslimiinta markii hore haystay waxaynu dhaxallay cahdi listicmaar iyo dacfigu ka tegey waxaynu dhaxallay aqaafaadkii reer galbeed iyo aragtidoodii iyo waxoodii oo weli sidii inoogu dhex jira waa caqaba meesha taagan waxa kaloo ina haysta dhib labaad oo ina hor taagan dhibta labaad ee ina hor taagani waa dhib shacbiya waa dhib ummadda ka timi xaggeeda ummadda aynu rabno inaynu hagno ummadda aynu rabno inaynu hanuunino waa dhib iyada ka timi dhibtaasi ka timi kow waxaa ka mid ah aljahaala bikulli anwaaciha waa ummad aan xadaaro lahayn ee jahli u daboolay jahligaasi wuxuu ka haystaa dhinacyada oo dhan waa jahli aada u ballaadhan waa jahliga gaadhsiisan inaynu gaajo u baktinno iyadoo kalluunkeenna baddu ay soo tufto yani qof gaajo u baktinaya oo badda dhinac taagan oo haddana baddu kalluun ay soo tuurayso dabadda usoo tuurayso gaadhi kari waayey inuu kanuun cuno ama si uu u cuno garan kari laha xabad kalluuna si uu u qabsado samaysan kari laha waa jahli nolosha jawaanibteedao dhan inaga haysta nolosha la nool yahay jawaanibtay leeday oo dhan waa jahli inaga haysta
oo aad u ballaaran ha ku xisaabta min percentka yare wax bartay waa jira tiro yare wax baratay laakiin markaad ummadda u eegto Soomaali la yiraahdo waxaad dareemaysaa inay yihiin 1% inaanay noqon karin haddaad badisa inaad tiraahdo waa 2% inta wax qorta ummadda boqolkiiba 2 ay wax qortaa waxaad garan kartaa dhibtu halka ay ka gaarsiisantay xataa mabda aynu ugu yeedhayno ee rabna inaynu ku bedelnaa dhibtaas ka haysata oo islaamka laftiisu aanay fahamsanayn in yar oo ay dhaxleen oo heritage ahaan ama dhaxaltooy ahaan ay u haystaan mooyaane caqabaad kale ayna haysta waxaa ka mid ah baan odhan karnaa caqabaadka ayna haysta oo malaa jahliga la sii socda albadaawa waxaan odhan karo cadam taxadur reer magaalnimo la'aan reer magaalnimadu malaa waa eray sida xunna loo adeegsadee maxaan ku tilmaamaa qiyam xadaariya baynan lahayn ama si kale haddaan u tilmaamo badwiga ninka badowga la yidhaahdo waxyaabaa lagu yaqaana waxa lagu yaqaana waxaa ka mid ah waa waxyaabo aad u cajiib oo badowgu uu caan ku yahay oo caalamka oo dhan uu kaga gedisan yahay waxyaabaha badowga lagu yaqaana waxaa ka mid ah alfawda وعدم الانبضاء وعدم الانضباط أما الحرية المطلقة وضد كوكبعة ميل أن قانون كتشرين ميل بدون قانون باي كوكبعة مركان لا قانون كمتشرين محان وجهه قانون كضدك إنه وضن ولا ده سامح ماله كاين عدلا وسكدجا قال سياري سؤالك قفاف صدا وحي أكتس صامرنا حولا نوجد بويل هذا لو مسود واده كالي جيبه هالكاتشوجا waxaan aad u dareemay waa anigoo xabsiya meel ka baxay baan baadiye tagay hawd wixii ugu horeeyay aan dareemay wuxuu noqdaa bal caalamkan aan booliiska lahayn ee qaanuunka lahayn ee meel aad u socotay ciidigu caalam dhan oo kullu xurriya mutlaqa waagu markuu bariyo ninku xaq doona u dhaqaajinaya xaq doonana wuu kacaya waa qof ku taracrucay markaasi in xurriya mutlaqa haysto oo aan la qaydin waa taqaan Soomaalida haddaad tiraahdo imika markaanu halkan niman waxyaabo aynu iska baranay baa jiraan cidi inugu qasbin laakiin markaanu aragay dadkan xadaarada la inuu iskala dhaqan مثلا waxa laga yaabaa warqada yaraad farays ka mariso waliga inaad wadada ku turinaad iska sido waqiyam xadaari oo lagu baray inaad waxan meelaha ka nuskageyn waxa laga yaabaa gaariga sigaarka lagu macabo haday ku qorantay inaad waliga ku cabin laakiin markaad baqaaxida Soomaalida tagto waad iska shidaysaa iyada ku qorantay lagu macabo waayo waxaad ogtay inaad u timi fawdawiya uma nidaamka iyo waxa jeclay markuu gaalka u galayo sigaarka cabbi maayo waayo waxa ugu qoran boorda sigaarka lagu macabo qaanunku ixtiraamaya laakiin markuu adiga ku yimaado konton boorda hadaad ku qortay uu cabaya sababta waxay tahay wuxuu ku ogiyay deena wada tiineen waar nagu cashuurin meesha baa laga yaabay inuu ku yiraahdo hadaad tidhaahdana war laayxadeena dhigaysa inaan meesha wax lagu cabin idan waa ummad ku taracrucday ama ku kobocday xurriya mutlaqa xurriyada mutlaqa ay waa bi'a fawdawiya waayo bi'ada noocaasi u kacdaa inta badan had iyo goor waa bi'o nolosha ay fududay marka dhan laga eego ay naadirtay al-ustaad maxamed qutba wuxuu yiraahdaa bi'ada caalamul islaamigu inta badan uu ku nool yahay buu waa meel ay naadirtay qofku inuu gaajo u dhinto buu waa meel ay naadirtay buu qofka in baraf dilay iyo qabow waa meel kulayla buu yiro qofka aqallu taam ba ku filan yani dhulka qabow waa inaad in badan shaqaysaa wax badan cunta laakiin markaad meel kulul joogto cunada in yar baa kaaga filan oo aqallu taam ba qofka ku filan waa meel buu leeyahay qofku markaasi inta badan ay isaga barteen intan yarna in la iska heli karo si kastaba lagu helay shahaad lagu heliya mid kale gurigiisa laga soo cunyaa inta yar beerka lagu toosinayna waa in la iska heli karo waa meel qofku dareemayo shalay wuu noolaa maantana wuu nooliyay waa mustaqbalka uga sii fikiraya barina waad iska noolaanaysaa waayo berrita waxay la tahay shalay sida ay ahayd unde maadaama shalay baa uu noolaa aan waxaan u khitadayn jirin u fakari jirin nidaam u baahnayn berritana muxuu uga fakarayaa soo sidii uu noqon mayso sida daraadeed waxa la fududay inay caynka noqoto bi'ada noocaas waxa lagu yaqaan afawiyya shadiida ama waxa lagu yaqaan qasri nafs waa dad aan u adkaysan karin maamul waqti dheer u baahan hadduu daacadnimo kasta kugu ogi oo wax ku yara dhibaa wax yara wadaano bil marka la wado oranay war waxa ma soo wadaan bil dhanba dadku daba socdo wax la haya may jirto waayo nafas tawiila male
khuda baciida male waxaas iyo dhammo way ku adagtay ninka Soomaaliga ah waxaan idin tusinayaa maanta waxa la iqaata la sheegay imka haddaan idin wacdiyo oo idin idhaahdo ilaahay dartiisa uu bixinaya jeebka gacanta gelinaysaa wada bixinaysaa haddaynu idhaahno waryaadhan waxa la bixiyo maxaynu bixinaa haddaad tidhahdaan aan idhaahdo 500 maanta dhiga waxa laga yaabaa in badan oo Soomaaliyeed inay 500 dhigto laakiin haddaan idhaahdo 500 sanad baan idinku qaybinaya bishii 40 karawnaad soo bixinaysaa ama 20 karawne in misaal laazimaysa aad u malaynaysaa inay bishii 20 karawna bixiso bishan 20 kan inaga wada bixiya bisha ku soo ridaysaa ta dambe dadkii 600 ba ku soo ridaya ta ku xigta 300 qof intaanay sanad gaadhin u baad arkaysaa in iyadoo ay kugu soo hareen 10 qof dadkii markii hore kunka waayo nafas طويله male khutta baciidati al-amada ma qaadi karo waa umma badawinimo ku taracrucday waa sifa reer baadiyenimadu leeday oo ah inuu fawdawi iskaga socdo arrintiisu ay ahaato uun maxay kula tahay hadda waxaana la fuliyo wixii aan hadda la fulinayna inaanay qiimo badan lahayn in laga sii fakaro waxaan leenahay waa ummad noocaasi u kobocday ama afkaarta noocaasi haysata badawnimadu waxay kaloo leeday haddaynu nidhi waxay leedahay fawda iyo cadam al-indibaat waxay kaloo leedahay العنف والسرعة اتخاذ القرار بيلاده غير بادي نمدو waxay kaloo leeday ama badaawada sheegaya ونولل qalqalafsaniya aaday ku dhisan nolol qalqalafsanaan iyo aaday ku dhisan adaygu dhanna faa'iido kaleeyay dhanna xumu kaleeyay booskiisa markuu dhaco faa'iido leeyay markuu qofku jihaataba markuu caynkay adaygiisu faa'iido leeyay laakiin tabciga iyo dhaqanka iyo akhlaaqiyatiisa waxa kan haday qofka qalafsanaadaan waa yara dhibaato badawnimadu waxa kamid ah cawaatiftu dadku markay kacaanuun ayuunba qaraarka la gaadhaa waxaas baa la sheegay saas baa la yidhi macaynkaasa maxaynu yeellaa imika haddaaba go-aan laga gaadhaya lagama yaabo in daraasa la sameeyo lagama yaabo in waxaan la baadho lagama yaabo in waqti dheer la qaato hadda ayaa la isku dayayaa wax walba in go-aan rasmiyo dhaqso ah laga gaadho weliba waxa laga yaabaa inta markaa wada joogtaan inay go-aanka gaadho magaca dadkay matalayaan oo dhanna ku qaataan imika reerahan waxa laga yaabaa inuu yidhaahdo reer bacaynkaas ka soo baxday way adagtay reer intuu ballan qabsado inuu yidhaahdo maalintaas ay inoo shiro wax aqoontiisa iyo dadkiisa iyo waxa uu isugu yeedho inuunbaa meel iska helisino intay wax gaadhaan bay magaca reerkun ku cilaaminaysaa unoo reerkuna dhib badan kama qabe uu iska aqbalaya waxaa laga yaabaa inta halkan joogtay in yaroo isku reere hadday maanta intay halkan wax ku qabato ay dabeetana soo cilaamiso in dadkuna ay yidhahdaan reer hebel baa shiro caynkaasay gaadheen waayo waa qaraaraadkeen oo dhan baa waxay iskaga salaysan yihiin surca in loo qaato ummadda badwiga ah waxay kaloo caan ku tahay tacasub alqabali ayay aada caan ugu tahay tacasubka qabaliga ahi qabiilku society-ga qabiilka u noole waa qaab ka mid a nudumka ijtimaaciga ee loo noolaado asliyan laakiin wuxuu leeyahay boos iyo meel ku cuntanta waayo waa heer ka mida baynu odhan karnaa heerarka dadku uu noolaado waayo dadka badwiga ahi ninka baadiye jooga ee ahlu baadiye qabiil ka tirsani cashiiro ama qabiilo ama reer buu fardi ka mida yihi reerkaasuu hiil iyo hooba siya ula taagan yihi waxa reerkaas korkooda ana waa saaran yahay waxa uu xuquuq leeyina wuu leeyahay marka loo eego reerkan muxuu ugu tiirsay marka loo eego waxay yiraahdaan asraac min ajli albaqaaga sheegaan inuu noolaado reerku waa inuu wada saxansadaa la wada guuraa wax la isku taraa haddii xooluhu reerkan saas uga tirsay wuxuu kale uga tirsayay reerka waxa laaliya waxa ku soo kordhay duulimaad iyo weerar iyo wax kastaba waa inuu ka tirsanaada ninka reer baadiye mambuudka laga dhigo ee aan qabiiladu markaas ay fitnaysa wuxuu ahaan jiray bay dhahan fi usur al-jahiliya lula qof damigiisu mustabaax yahay cidii doonta ay dili karto cidii doonta ay xooliisa dhici karto waayo reer tabaniye qadiyadiisu ma jiro marka ninkani waa iska waa ku yiri waynan gumeed iyo waa gun iyo waxan waa dad ama yaraaday ama qadiyadooda iyo xuquuqdooda cid tabaniday waayay dabeetana intii kale ay markaasi dul mareen oo ay cagta mariyeen waxa jiri jirtay markaa
markaynu eegno dadkaasi qaabkay u noolaan jireen maalan jaahiliyadii carbeed oo aan sidhaahdo mararka qaarkood qaab qabiilkood iyo qaab qabiilkeennu male aad bu isugu dhowaa siday qaraaraadka sida degdega ugu gaari jireen siday casabiyadooda iyo qabiilkooda u kacsanaa mid ka mida baa gebiyey markaasuu wuxuu leeyahay qaatili lqawma ya khusaacu walaa yadkhilkum min qitaalihim fashalu alqawmu amhaalakum lahum shicrun fi ra'si laa yantashiruuna in qutiluu buu leeyahy yani waxa uu wax ku baysgaraynayaaba waar iyaba timay leeyihin hadday dhintaan feedhan maayaana idina halumu buu leeyay dagaalama waa qof waliba timuu leeyahy hadduu dhinto timu waa ka dhacayaanuune dagaalka haba yaraatee ha u gaagaabsanina buu leeyahy hore u gala waxaa laga yaabaaba inay u arki jireen inuu reerku dagaal galaa oo wax iska dhaciya inay tahay meelaha reerku uu magaca ku helo reer weligii iska miskiin aan weligiiba dagaal gelin oo dadka iska nabadgeliyo inaan ahayn reer magacba soo heli kara waxaynu garan karnaa noocay u noolaayeen mid ka midabaa faras uu leeyahay oo yar buu gabay u tirinaya markaasuu muxuu leeyahay ida almuhratu shaqraa'u adrak yacni gabay dheer intu soo tiriyo wuxuu leeyahay baha faraskayga yari ee fiicani hadduu gaadho dhabarkiisu mid la fuuli karo wax la fuulow noqdo fashaba alilaahu alxarba bayna alqabaa'ili buu leeyahy ilaw reeraa dagaalka dhexdiid buu yidhi maalintii taasi qaan gaadho wuxuu rajaynayaa in dagaal la dhacaan mar haddii bahashiisa yare ay qaan gaadho wa awqad naaran baynahum yani wuxuu tilmaamaya ilaahu dab ka shid dhexdooda aan damin oo xoog u ifa casabiyadooda qabiilku waxay taagnayd kuwii uu tilmaamayey shaacirkoodu in ana lam ansur akhi wa huwa daalimun cala alqawmi lam ansur akhi xiina yudlamu wuxuu lahaa walaalkay buu yihi haddaanan u hiilin marka uu wax dulminayo ma berrinta marka la dulminaya wax ka dhicinayaa buu leeyahy yani in adeerkay markuu wax dulminaya buu leeyahy haddaan dulmiga ugu hiilin waayo ma berri marka wixiisa la dhacaaban haddaa wax hiilinaya buu leeyahy maanta wayna raaca waa kii kale mid kale lahaa wamaa ana ilaa min ghuzayin gawat yani anuu miyaan ka tirsanin reer hebel mooyaane buu lahaa reer hebel hadduu lumana waan la lumi un hadday jannada galaanna waan la galin weeyaan hadday naarta galaanna waan la geli doonaa waxaad ka garan kartaa ashcaarta jaahiliga markaad dib ugu noqoto shaacir jaahiliyabaa reerkoodu canaananaya reer kalena wuu ammaanaya reerka kale muxuu ku ammaanaya reerkooda se muxuu ku caayaya ammaanta reerka kale uu siinayaa waxay tahay nin iyaga ka mid oo qaylinaya yimoo hayaayay leh dabeetana may odhan buu yidhi war maxaad ka qaylinaysaa seeftay la dhinac carareen buu leeyahy idinkuna marka tolkiin soo qayliyaan baa odhanaysaan buu yidhi maxaa dhacay wuxuu ka xanaaqsanyay maxaa dhacayda in la isweydiiyo marka wuxuu leeyahy marka ay soo qayliyaan laa yasaluuna akhaahum xiina yandabuhum fi naa'ibaati calaa maa qaala burhaanu buu lahaa ma weydiiyaan buu yidhi reer hebel markuu walaalkood dagaalka ugu yeedho ma yidhaahdaan war waxaanad sheegaysa maxaa dhacayo see wax yihiine way dhinac ordaan idinkuna tolkiin baa qaylinaya waa iska aamusantiina waa joogtaan yacni waxay ahaayeen bulshadu badaawada loo yaqaano saddexdaas sifaynu odhan karnaa bay leeyihin inay ummad nidaam aan ogolayn yihiin oo nidaamka aada u neceb aan u hoggaansanayn waxooduna fawdo iskaga salaysan yihin inay yihiin bulsho had iyo goor lagu yaqaano qaraaraadkoodu si degdega inuu u go'o inay yihiin dad lagu yaqaano walaa acmaa inay siiyaan qabiilka ama casabiyada waa caqaba shacbiya idan waxayn leenahay quwa caalamiya way jirtaa oo waddankeenna iyo dadkeenna iyo ummaddeenna khalkhal gelinaysa waxaa kaloo jira baynu leenahay jahli shacabkeenna haysta waxaa kaloo jira baynu leenahay xadaaradeenna xadaaro badwiya oo reer baadinimo ku salaysan intaa waxaa raacdoo kale baynu leenahay min xayثu alqiyaada sayطarat alcilmaaniyiina fi اlxukm dad cilmaaniyiina malaa cilmiba maahe waa caalamaaniyiin nisba ila alcaalam dad caalamaaniyiina caalamaanigu waa maxay waa dad diidan inay nolosha u hogaamiyaan ilaahay yacni tawajuha siyaasi alislaami waxa weeyaan in dadka ilaahay loo hogaamiyo waa tacbiid اlbashari lilahi subxaana wa tacaala bini aadamkao dhan in alle looga dhigo alle loo hogaamiyo weeyaan siyaasa alislaamiya wax kale sheegi mayso laakiin kooxdani waa koox rabta inay taa ka reebto oo ay yidhaahdaan cuquushayada iyo afkaartayadaanu ku maamulayna waa secularismkaynu maqli jirnay reer galbeedka caanka ku ahaa fi'adaa yar oo isticmaarku uu rabaystay oo isagu uu tababaray oo aada wax u baray oo uu baray in ay bulshada isaga gadaashi hogaamiyaan ayaa isagu markuu tegay hoggaankii qabtay yacni waxaan odhan karaa isticmaarku intuu albaabka ka baxay ayuunbu daaqadda ka soo galay khalas
waxa isgadiyay wuxuu buu ahaa ninkii meesha fadhiyay rayadaadka oo cajiib kale aan dib u xasuusto waxa kamid ah lixdanadii ayaa waxa la yiraahdaa nin Soomaaliyeed oo Kristan ah yani fi ayro Soomaaliya jirto cadan iyo meelaha intay baadarigii gashay oo Ingiriisku gaaleeyay oo markaa uu xoogaa uu soo baray oo Christianity qaatay ayaa baarlamaanka isu soo sharaxay Soomaalidu markaasi waxa la weydiiyay ninkan baarlamaanka soo saad u helaysaa baa la yiraahdaa baarlamaanka aduu nin Kristan ah baad Soomaalidu say ku dooranayaan wuxuu yiri tolkay diin taa ka yara qiimo badan bay rumaysan yani Kristan iyo Muslim ah wax lagu kala dooranaya lagu kala saaraya arrin kale jirta buu yiri nin reer hebel baan ahay buu yiri tolkayna reer hebel bay rumaysan يعني مشكلة ما هنا كريستيان هي هنا مسلم هي كان هاي أردت وحوي إنه رير هبل هاي مرة رير هبل هاي هو إيمانية فعلا نويم حلنا قضيتهم حي قصة ليسنايد دد علمانيين أن مبدأ إنه ربنين لينجوه الجامية ينجوه الجامين بعالم الإسلام ودان حكومي وايس كجمد كوي مجا كريستيان كلا بحية كوي مجا مسلم كستي وايس كمان هج بيوته اسكو قضيات بيستي isku mabda bay haayeen isku diiwaan bay xambaarsanayeen waxa laga yaabaa kii magac Kristanka watay isagu inuu daacadaystay oo la garanayo la lahaa waa gaal hebel inkastoo la daba socday laakiin kan muslimina waa loo haystay waxana isaga dadka ku waday waxaan leenahay taasina waa caqabad kale oo meesha taala waxa meesha yaal baynu markaa leenahay ummadda aynu rabnay inaynu hogaamino oo aynu ku hogaamino islaamnimo عقبات كاسبة هيستبين لنا عقبات دا عالمية هي تا شعبية ما داخلي واي نكوشيغي كرنا إناي تهي أمد جاهلي هيو أي نكوشيغي كرنا إناي تهي أمد أن حضارة لهين أهل البدوية أي نكوشيغي كرنا إناي يهين أمد أي أطاليان دد علمانيين انت أسوى مشكلة أي أسوى بيري ummadda intaas oo mashkili isugu biirtay sidee baynu u nooleyn karnaa markaasi ama se u soo saari karnaa maxay tahay macaalim siyaasada islaamiga maxay tahay macaalimta aynu u baahanay inaynu ka intilaaqno oo ka bilowno si aynu ugu soo ceelino islaamka dadkii si aynu manasat al-hukm ama heerka maamul u keenno dad islaamiya si aynu uga dhigno nidaamka nidaam islaamiya si aynu u helo dad fiican oo muslimiin ah dhowr arrimoodba waa laabud marka inaynu ka fakarno arrimaha laabudka inaynu ka fakarno waxa kamid ah baynu leenahay arrinta ku saabsan mafhuumka siyaasiga islaamiga inuu cadaado inuu waadix noqdo aad u cadiy siyaasadda islaamiga مفهوم عقيدة أبي كبلا بنتا وحي كبلا بنتا بين أوران كرنا موضوع علماء المسلمين تو يقانين الولاء والبراء الولاء والبراء ومفهوم عقدية وسياسية بين أوران كرنا حانو قد شيدا قفك مسلم كا قد بدوا شعب بدنا وقادة وهجامية هجامية وقفك استضدك حلو هيا كمساجد كحكومة كجاليات حكومة كأور خير حكومة كوده هجامية ودد هجان هيا أو اسكود هيا يومد هجاميان ضدنا ودد له هجامينيو يقاب كوحلوه هجامينيو وصدق هذا شيء بينه وباهني إنه نسيف عنه تأوجانه